waxaa maanta si rasmi ah loo bilaabay wejigii labaad ee dhismaha jeelka weyn ee magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar kaasi oo ay hirgelintiisa iska kaashadeen dadweynaha shacabka ah iyo maamulka heer gobolka Saraar iyo degmada Caynaba. hirgelinta iyo dhamaystirka jeelka weyn ee magaalada Caynaba oo in badan qabyo ah isla markaana u dhisnaa qaybta deyrka ayaa waxaa maanta la dhisayaa qolalkii gudaha. goobtii lagu bilaabayay wejiga labaad ee jeelka ayaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin tiro badan oo ay ka mid yihiin barasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali, maayirka degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan, taliyaha jeelka Caynaba, barasaabka xigeenka gobolka Saraar, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saraar iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan. ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan kaasi oo ka dhawaajiyay in ay dhismahan dadka shacabka ah ee shirkadaha ganacsiga qaarkood iyo xubno kale iska kaashadeen. in mar labaad dib loo bilaabay oo bulshada deegaankan Caynaba ay soo bilowday jeelkii gobolka Saraareed oo diyaarkiisii hore looga shaqeeyo loo wareejiyay shacabka arkaysan. maantana waxaa la bilaabayaa in la sameeyo qolaalkii xabsiga laga dhigi lahaa xafiisyadii insha Allah tacaala biidnillaahi kariim inaanu dhammaystirro shaqadan maanta la bilaabo arkaysaan. waxaanu ku rajo weynahay in jeelkan si degdeg u furmo oo aanu dhamlo ee qurba joog leh ee ganacsato leh ee xildhibaano qaran leh ee dadweynaha deegaanka leh inay gacan naga siiyaan in jeelkan hirgalo. madasha hadallo ka soo jeediyay wuxuuna intaasi ku daray inay diyaar tahay askartii ka hawlgeli lahayd jeelkani marka uu dhamaystirmo. ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo gabagabeeyay barasaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali kaasi oo sheegay inay in badan la xiriireen hay'adaha caalamiga ah ee ku shaqada leh jeelasha balse aanay wax jawaab ah ka helin isla markaana ay u guntadeen isuna taageen sidii ay u dhamaystiri lahaayeen hadday ahaato dadka shacabka iyo maamulka gobolka iyo waliba kan degmada Caynaba. marka in badan baanu la xiriirnay hay'adaha inay dhamaystiraan wax jawaab oo rasmi ah wax qabada kamaan albaabo fara badan baanu runtii garaanay si xabsiga loo dhamaystiro ilaa hadda kamaan helin wax jawaab oo rasmi ah wax qabada kamaan helin. waxaanu ku tashanay inaanu xabsiga dhamaystirno iyadoo dhibaato naga haysato xabsiyadii aanu maxaabiista u gudbin lahayn sida xabsigii laascaanood oo kale iyadoo ay maxaabiistii nagu tiro badato oo kale aanu ku haynaa aanay jirin xataa taasaa dadweynaha waxay in badan culays nagu saareen dadweynaha gobolka Saraar oo wada jiray culays fara badan maamulka gobolka ee degmada ay nagu saareen inaanu ka hawlgalno sidii aanu xabsigan u hawlgelin lahayn. ina waanu ka ajiibnay waxa weeye wayna la qabteen runtii saaka waa u diyaar iska ayaa mashruuca badankiisa ku socdaa oo isna socdaa wax taageero leh aanu helay iyo wax iska wax qabso ka socdaa oo wasaadada iyo iska rawooyinka iyo kuwa dhagax bixinaya qolo walba waxba iska jareen oo iska wax qabsada qayb bay kaga dareen. marka waxaanu ku talagalay mashruucaas inaanu wixii ku qaban karno taasaanu insha Allah aanu markaa doonayna inuu ku gabagabeebo. aad iyo aad baan idin salaamay. si kastaba ha ahaatee jeelka weyn ee magaalada Caynaba ayaa la filayaa inuu dhawaanahan u dambeeyo oo dhamaystirmo. maxamed aadan dirir TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Caynaba.
si kastaba ha ahaatee cusbitaalka guud ee magaalada Caynaba ayaa ah isagu soo shaqo tagaan shaqaale badan waana goobtii lagu daweyn jiray ciidamada qaranka waqtigii lala wareegay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Maxamed Aadan Dirir TV-ga caalamiga ee Somali Channel Caynaba.